magacayga anoo jooga magaalada Gurceel oo magacayga liiraa Iskariim Maxamuud Daahir madaxweynaha uu ku maasan yahay inuu dekedda Hoobiyo dhiso aniga waxaan rabaa inaan dekedda Hoobiyo ka shaqeysto dhalinyarada yar oo ka shaqeysa ayaa kamid ah dekedda Hoobiyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya shalay waxa lagu kala saxiixday heshiiska markaasi dekedda Hoobiyo lagu dhisaa waxaan heshiiskaas saxiixay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo shirkadihii dhisa lahayd dekedda Hoobiyo haddaba shacabka Gurceel sidee u arkaan dhismaha dekedda Hoobiyo ee shalay lagu kala saxiixday magaalada Muqdisho oo goobjoog ka ah madaxweynaha Galmudug oo isagu saxiixay shacabka reer Galmudug gaar ahaan shacabka reer Gurceel ayaana mikrofoonka la dhex qaadnay magacayga waa Maxamed Mahal Axmed oo jooga degmada Gurceel waa soo dhaweynaa runtii dekedda Hoobiyo oo shalay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo saxiixay in la dhiso runtii waxtar aad u weyn iyo ku soo kordhinaysa Soomaali ahaan iyo geeyga Soomaalida qaasatan reer Galmudug runtii aad iyo aad hadda inta yarado hadda furneed wax badan ay mataqaana qabatay xaq mataqaana maciishada iyo mataqaana xaq mataqaana Galmudug iskaabe xaq dhaqaalaba wax badan ay mataqaana ay ka qabatay marka maasha runtii aad u soo dhaweynaa dhanna shacabka Galmudug aad u soo dhaweynaa runtii maasha Allah waa arin hore loo qadan dhigi karaa waan u hambaleynaa mataqaana madaxweynaha arintaas oo mataqaana ku tilaabsaday halena ma sha Allah magacayga Umar Cabdullaahi Cusmaan waa kamid ah dhalinyarada ku nool degmada Gurceel haddii aan ka dhibto fikirkayga ku saabsan dekedda Hoobiyo dhismaheeda oo ku saxiixay madaxweynaha Galmudug caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho runtii reer Galmudug hadaan nahay aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waa tiir kamid ah dhaqaalaha oo runtii ay Galmudug yeelanayso in Galmudug ay yeelato deked oo ay ka mid noqoto maamul goboleedyada dekedaha leh dabcan runtii aad u fiican tahay waana soo dhaweynaynaa inay yacni waana aas runtii ama horumarada Galmudug ay ku tilaabsanayso qayb kamid ah ayaan isleeyahay runtii waana wax badan ay noo tiri doontaa sidaan aaminsanahay magacayga anoo jooga magaalada Gurceel oo magacayga liiraa Iskariim Maxamuud Daahir madaxweynaha uu ku maasan yahay inuu dekedda Hoobiyo dhiso aniga waxaan rabaa inaan dekedda Hoobiyo ka shaqeysto dhalinyarada yar oo ka shaqeysa ayaa kamid ah dekedda Hoobiyo magacaygu waa Xasan Cabbaas oo jooga degmada Gurceel qaasatan Bedir 1 aad iyo aad u arkaa arrin muhiimad leh oo maaragtay wax gal badan u leh Galmudug iyo Soomaaliya intaba aan u arkaa waxa waaye wax badan hadda Hoobiyo intay ay maaragtay fureed ay noo qabatay gaadiid badan laga soo dejiyay wax badan ay maaragtay ay qabatay Allah ilaahay horumar fiican ah Galmudug iyo Soomaaliya intaba ay ku tilaabsadeen aad iyo aad ay u fiican tahay waana maadsanta waa soo dhaweeynahay shacabka reer Galmudug gaar ahaan degmada Gurceel dadka ku nool waa soo dhaweeynaa heshiiska dekeddaas ee loo saxiixay dhismaheeda aad aan u faraxsanahay waxaan rajaynaynaa inaan kala soo degi doono mashaariicna iyo alaabaheena daanahay ganacsatada Galmudug inaan dekeddaas kala soo degi doono alaabaheena Maxamed Cumar Suuriyaan telefishinka dawlad goboleedka Galmudug Gurceel